واكو سلامي صاحب أيدي لها الرحمدين ماذا حيجي سلاح جرتي إلا أنت عن قمايو حبين كستنا وحيجي الشيكين جرتي شيكي معان حبين أيجي الشيكي سني صاحب كي دين كدونتي صاحب كنا وقع دردارتي ما دامه باهيدي هيستي سجن كوهبستين سوى حو صاحب كي ساسوت المامين نينو كورين كاسعد isaga ayaad muraadkaaga ka helaysay ninkii waxa uu aanba baxay dhanka guriga ninkii loo tilmaamay si uu adduun uga soo amaahdo markaasuu arkay isagoo daweynaya lax bugta waxa uu hoos kula shooray ninkaasi dhibcaalama bakhayl yahay oo isagoo waxa soo ariya haysta uu ka hari waayay laxdaas bugta ninka noocaas ahina aanu isagana waxba siinayn inta uu ninkii saaxiibkii ku laabtay ayaa uu arrintii u sheegay markaasuu haddana ku yidhi saaxiibkii laaba kuma hongoobi sidee markii uu soo laabtay ee uu gurigiisii soo gaadhay ayuu haddana maqlay isagoo ku waaninaya ubadkiisii inay soo qaadaan xabad kasta oo hadhuudha oo dhulka kaga dhacday markii ridqinta amba meesha lagu shiido cuntada ku sii socdaan markaasuu haddana si hoose isku yidhi ninkan bakhaylnimo darteed xabad hadhuudha ka hadhi waayey wallaanu adigana hanti ku deyminayn yaa ku lugeen saaxiibkii ayaanu ku soo laabtay oo uga qisooday waxa uu la soo kulmay haddana saaxiibkii markale ayaa uu ku cadaadiyey inuu ninkaasi ku laabto oo ka dalbaday diinkaas inuu ku hingooban aanu ka baqin mar saddexaadkii ayuu ninkii soo laabtay markii uu gurigii soo gaadhayna waxa uu maqlay ninkii uu hablihiisii kula dardaarmaya inay iftiinka faynuuska hoos u dhigaan si ay gaasta u dhowraan oo in badan ay gaastaasi u hayso isagoo ninkii isla sheekaysanaya oo isku leh ninkan waa dhabcala naf soo biday oo aan ku qayboobayaa kulleyba ayuu ninkii furay riddii markuu arkay ninkii linta taaganna waxa weydiiyey waxa uu doonayo waxa uu ku yidhi run ayaan kuu sheegayaa oo beenawaas meehi waxaan ahay nin tabaalaysan saaxiibkay waan tuumiyeyna aniga ayaaba uga simiciin liitaa si adiga ayaa u soo kaa tilmaamay imanka waa markii saddexaad ayaan gurigaaga soo hortaagay markii koowaad adigoo lax bugta daweynaya ayaan arkay markaasaan ku fikray adigoo waxaa soo ariya haystaa inaad laxdaasi ka samri weydaa inay muujinayso bakhaylnimadaada markii labaadna waxaan maqlay adigoo carruurtaada kula dardaarmaya inay aruuriyaan hadhuurka jidka kaga daataa inta ay ridqinta ku sii socdaan markaasaan isidhi ninkii xabadahaas hadhuurka ah ee jidka ku dhacaya ka fakan waayeen waa ka dhabcaalnimo ee ha ku walaacin iminkana waa adiga hablaha kula dardaarmaya inay fiinuuska naaqusaan si ay gaasta u dhowraan waxaana sii xoogaysatay bakhaylnimadii aan ka aaminay ninkii inta u dhowlacatay ayuu ku yidhi laxda marka ay noqoto way xooganeed yaraanteedii muddo dheerna caanaheeda ayaan soo cabaynay markii ay bugooltay haddii aanu xanuunka ku eeganno amba baannu kaga tagno taasi waa danaysi hadhuurka marka ay noqotona waxaan ugula dardaarmay yaryarkaygu inay midharka ka dhaca ururiyaan si ay u bartaan ixtiraamka nimcada maadaama aanu qofna garanayn cuntada ay barakaydu ku jirto dardaarankan aan hablahayga inay fayruuska naaqusaan ku waaninayaa waxaan ku barayaa dhowrisiga lexjeclada waa run oo anigu hantiilo waanahay se iyaga dhowaan waa layga guursan doonaa mid ka mid ah ninkeedu inuu sabool noqdana la arkay waxaana aan doonayaa inaan nolosha u sii diyaariyo ninkaasuu deynka ka reebay uu ka raaligeliyey maliix xumaa ee uu ka qaatay ninkaasina baahidiisuu kafeeyey sidaas ayayna ku kala tegeen saaxiib beri hore ayaan qisadan ka bartay inta wanaagga qaarkii aan dhayal lagu helin iyo in aan waxna dusha sare ka xukumin dadka qaarna ay wax ka eegayaan meel in badan ka durugsan halka ay dad kale wax ka arkayaan balo fiirso fintaa saaxiib xataa ma aanu dayicin laax ay wakhti tegey soo wada qaateen ma kula tahay ninkaasoo kale qof aadama ah inuu dayacayo oo cidla kaga dhaqaaqayo saaxiib arrimaha yaryari waxay kaaga warramayaan arrimaha waaweyn waxyaabo aad u jasiran iyo arrimo aanad ahmiyadba siinayn oo aan macno buuran lahayn ayaa haddii aad si dhaba ugu daymo badiso ilin dheergarada waayo aragnimana aad ku eegto aad kaga baaqsan lahayd dhibta aad ka marto inaad dadka si dhow u barato oo aad u yoolbaadho nabaadiina saaxiib.